qur'aanka wuxuu dadka ku hanuuniyaa arrinta u toosan wuxuu leeyahay Allah subxaanahu wa ta'aala إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. sheekh badarow qur'aankani qofkii qabsadaa oo ku camal falaa aayadihiisa kuna tadabbura saas darteeda Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu ka saarayaa mugdiyada wuxuuna u saarayaa iftiinka qofkaasi run sheegidda uu ka ran sheega kitaabka Allah wuxuu leeyahay Allah subxaanahu wa ta'aala bidaayada koowaad ee suurat Ibrahim ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بلس شيخ بدروw الله جل وعلا wuxuu inoo sheegay qur'aanka inuu yahay dardaaran sidoo kale yahay daawo qalbiga uu yahay kale Allah subhanahu wa ta'ala uu dhawaaqay ma ahan muslimiinta bas ma ahan mu'miniinta bas ma ahan muxsiniinta bas balse wuxuu dhawaaqay dadka dhan wuxuu yiri Allah أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر يا شيخ منصور. walaalayaal dhammaanteen waxaynu leenahay asxaab daawadayaasha sidoo kale asxaab ay leeyihiin balse ma taqaaniin saaxiibka u sareeyo waxaa weeyaan qofka la ah qur'aanka oo ma garanaysiin sababta waxa imaani doonta maalin aad u kulul maalinta qiyaamaha qur'aanka agtaada ayuu istaagayaa adiga ayuu kuu doodayaa waa saaxiibka wanaagsan maalin kulul maalin aad u weyn maalinta qiyaamaha saas darteed wuxuu yiri xabiibka sallallahu alayhi wasallam qur'aanka akhriya qur'aanka wuxuu imaanayaa qiyaamo asagoo u shafaac qaadaya asxaabtiisa u shafaac qaadaya dadka akhrin jiray saaxiibka la ahaa ma taqaanin saaxiibka wax laga wado yacni qofka markuu qofka saaxiib leeyahay agtiisa ayuu joogayaa uu la fariisanayaa saaxiib dhab ayuu leeyahay walaalayaal dhammaanteena baa Allah inaga dhigo kuwa qur'aanka u shafaac qaado oo saaxiib la noqdo fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe inoo saar kana mid noqo asxaabta wanaagsan aan leenahay sina share garee aad baad u mahadsantihiin